mid ka mid ah beelaha deegaanada Puntland ayaa maanta munaasabad ay ku qabteen magaalada Garowe caasimadda Puntland waxay ku shaaciyeen suldaanka cusub ee beesha oo ah Suldaan Axmed Suldaan Cabdullaahi Axmed Nuur. munaasabadda shaacinta ka qabsantay Hotel Aduun Garowe ayaa waxa ka soo qayb galay bahda odayaal dhaqameedka Puntland, culimo, aqoon-yahano, dhalinyaro, haween iyo bulshada qaybaheeda kala duwan. ugu horreyn waxaa munaasabadda shaacinta ka hadlay qaar ka mid ah nabadoonnada beesha shaacisay suldaanka, iyagoona ka codsaday odayaal dhaqameedka kale ee Puntland in ay la shaqeeyaan isinkan cusub ee ay maanta shaaciyeen, iyagoona sidoo kale ka sheekeeyay saldanada soo jireenka ah ee beeshu ay leedahay. in halkan ka cadayno xafladan iyo munaasabadan waxa ay daaran tahay ama ay qusayso aan xogaa si kooban u istaago. waxaan halkan ku shaacinaynaa oo soo gudbinaynaa haddii aan nahay beesha Mas'uud oo ka mid ah beelaha Puntland iyo guud ahaan Soomaaliya, una soo gudbinaynaa dhaqanka inuu ka mid noqdo Suldaan Axmed Suldaan Cabdullaahi Axmed Nuur Maxamuud Og oo sidaa wada garanaysaanba uu ahaa aabihiis suldaankii beesha ee guud muddo dhowr iyo 20 sano dhaqanka ka shaqeynayay si waliba xushmad iyo wanaag iyo ixtiraam badan ku dhex lahaa bulshada iyo bahda ula shaqeynayay guud ahaan Soomaaliya iyo gaar ahaan reer Puntland iyo dhaqankii simada. markii aanu eegnay muhiimadda ay leedahay isinka maadaama tii ilaahay ay u timid Suldaan Cabdullaahi soo shaqadiisa caadi wata oo sumcadiisa iyo wanaagiisa iyo khayrkiisa iyo culimanimadiisa in badan oo dadka ay isla shaqeynayeen ay ka markhaati kacayaan. markii ay tii ilaahay u timid waxaanu garwaaqsanay inay muhiim tahay inaan soo gudbino ilmihiisii ninkii ugu weynaa oo la yidhaahdo hadda maanta fadhiya Suldaan Axmed Suldaan Cabdullaahi Axmed Nuur. الله الحديث كورا شيء مركي وبيبيودي أسمعي ركبة جوي وبلاي إلى دمر با وعن كنت رجلي كتقول إن أنا كانوا وحاول ركوا أسمع وعن ملاين الناس في عن الوقصة بحضورا حلك الرسالة وأبيه حديث الله كوراش هذا برود أمين أقوله إنه أصيبنا كسر في الدورة يا رجينا إن شاء الله أنت كذب نقاس السودان كا ونقاس ير وأباهن وجان والله وحاول شغلين دون أنتم كجاري وقت ليسا دكتور عبد الخالق أحمد محمود وأديركيس وهذا قدر كي يفعله هي الله شقين دورا استمادة كان هو يرد دورا وكان كيلوري أو لا شقين لها أمبا مادة وجيل بريدها وأنا متعلمة وأنا أدب يسلوب وحبرشوا أما مادها أما محمدها sidoo kale waxaa munaasabadda ka hadlay mas'uuliyiinta kala duwaneed ee ka soo qayb gashay munaasabadda shaacinta suldaanka, iyagoona sheegay inay soo dhaweynayaan suldaanka cusub ee ay beeshu maanta shaacisay. marka aad iyo aad baan ugu faraxsanahay wuxuu ka soo jeedaa guri dhaqan sida la sheegay, wuxuu ka soo jeedaa reer la yaqaan oo caan ah, reer og waad garanaysaan oo waxa weeye Cali Cabdi Og oo cali qalana loo yaqaan waa ninkii maayirka ugu horeeyay degmada Garowe 54 ilaa 60 buu ahaa, nin aad iyo aad u wanaagsan buu ahaa. Suldaan Axmed Cabdullaahi waa soo dhaweynaya boqolkiiba boqol. Suldaan soo dhawow dadkaaga iyo dalkaaga iyo ku soo dhawow. suldaanka waa soo dhaweynaa guri dhaqanna waa ka soo jeedaa oo aan aqoon baa u leeyahay guriga reer waa guri dhaqan buu ka soo jeedaa. suldaamadu wax badan baan arkay suldaan kale gardaadinaya ama isin kale gardaadinaya waa nin dhalinyaro ah, laakiin nabadoon cusub oo nabadoon kale gardaadinaya ma arag bala soo kordhay uu qabaa. halkaan waa naga nasiib badan tahay runtii
suldaan soo dhawow boqolkiiba boqol. suldaan axmed suldaan cabdullaahi oo ku soo biiray saldanada puntland sidii raggii horeba ay u yidhaahdeen waxaan leenahay suldaan soo dhawow ilaahayna waxaan kaaga rajaynaynaa ninkii dadkiisa iyo dalkaba anfaca inaad noqotid waxaan filayaa saldanadu waxay ku fiican tahayba yaraanta maxaa yeelay qofku hadduu dhallinyaro yahay oo lagu gardaadsho inuu ummad hoggaamiyo wuxuu ku korayaa sidii waxyaabo badan oo qofka weynanka lagu doortay ay u dhaafdhaafi lahaayeen markii horena guri dhaqan ka yimi inaan uu noqdo qofaan waxbaba dhaafin oo runtii ay halkan inooga sheegeen qiimihiisa iyo meesha uu ka soo jeeda iyo guriga uu ka soo jeedo aafuri soldano waxaan leenahay suldaan soo dhawow maanta waa shaacintii insha allah haddaan nool nahayna caleemasaarkaan imanayna haddii lahaymo waxaan leenahay suldaan soo dhawow suldaanka ay dooranayaan oo ay soo keeneen waana ka aqbalay inaan suldaanka la qaadano suldaan axmed suldaan cabdullaahi axmed nuur waxaan leeyahay soo dhawow aabbaha baanu saaxiib ahayn ilaahay ha u naxariisto arda qur-aan baan isla ahayn iskuul baan isla dhiganay iskuulad baanu ahayn in wuxuu ahaa qaali ah oo ilaahay iimaan iyo akhlaaq siiyey waxaan filayaa waa uu kugu dhalay oo iimaankii akhlaaqda adna waad leedahay reer axmed nuur reer garow way ahaan jireen mar dambe xamar odayga loo bedelay xagga u wareegeen ugu dambeyn waxaa munaasabadda soo xiray suldaan axmed suldaan cabdullaahi axmed nuur isagoona halkaasi ugu mahad celiyey mas-uuliyiintii kala duwaneed ee kasoo qayb gashay shaacintiisa suldaanka ayaa sidoo kale sheegay inuu ka shaqayn doono isku haynta bulshada iyo beeshiisa mahadoo dhan waxaa sugnaatay ilaahay oo maanta noo fududeeyey in munaasabadan sidan qurxan loogu qabsoonto sidoo kale waxaa mahad celin gooni u jeedinayaa guddiga isku xilqaantay hawshaan qurux badanna qabatay dhammaan way mahadsan yihiin kasoo qaybgalayaasha maanta markhaati ka noqday munaasabadan shaacinta ah waxaa lay saaray mas-uuliyad weyn waxaa ilaahay weydiisanayaa inuu ii fududeeyo ka suldaan ahaan waxa layga filayo waa hoggaan toosan iyo inaa beesha suldaanka wahay u cadaalad falo taana waa halkii aabbahay kusoo dhaqi jiray ana dugtiisa ku taagnaanayaa insha allah kaysin ahaan waxa layga baahan yahay waa sabir dulqaad dabar adeeg inta waxaa rajeynayaa inaan la imaan doono beelaha walaalaha iyo odwaaganahay waxaan filayaa inaan wanaag iyo walaaltinimo ula dhaqanno ma labaad waa ku mahadsantihiin kasoo qalalkiina سيد أحمد كور باينت الدلجر قرو adeeg mareeg swipe account ee bangiga salaam waa adeeg hal akoon oo guud kugu xiraya akoono kala duwan waxa uu ku suurtagelinayaa lacagta akoomada hoose ku dhacday inay si toos ah ugu wareegto akoonka guud adigoo aan wareejin markii ay gaarto xadkii ama xilliga aad u dooratay